waxaan sameeyay Adidas. Assalaamu calaykum. Inta aan guda gelin barnaamijkeena waxa uu noqon doonaa mid aan qaab cusub u diyaariyay taasoo ah silsilada nolosha iyo sida uu shirkadda u yeegleelay min bilow ilaa dhamaad. La socod wanaagsan. Fadlan ha ilmaamin inaad subscribe saadho channelkeena. Waxa uu muuqaalkeenu yahay waa qisada Adolf Dassler, ninkii sameeyay shirkadda weyneed ee Adidas. Waxaan dhashay 3 bishii 11 sanadkii 1900. waxaan ku dhashay magaalo yar oo la yiraahdo Elzo Ganohoch, Jarmalka. hooyaday waxay ka shaqayn jirtay dhaqidda. walaalkay iga weyn iyo gabdhaha walaalahay ah ayaa caawin jiray. waxaana magaaladana loo yaqaanay dubilayaasha, taasna dhibaato iguma hayn oo waxaan la shaqayn jiray aabahay. aabahay waxa uu ku khasaaray shirkadda samaynta dharka oo ay qoyskeenu lahaayeen. waxaana ka shaqo bilaabay shirkad gabaha lagu sameeyo, taas oo run ahaantii bedeli doonta noloshayda, iguna dhalin doonta inaan sameeyo shirkadda ugu weyn adduunka ee kabaha soo saadha. inkastoo ay xanuun badan tahay inaad ku khasaarto shirkadaadii ku gaarka ahayd, balse waa meel wax ka qoran yihiin. ma aanan sameeyin shirkadaha ugu fiican xagga kabaha hadduusan khasaareen aabahay. intii aan xasuusto aad ayaan u jeclaa ciyaaraha, hadday ahaan lahayd kubadda cagta, tenniska, feerka, ayu nooc. laakiinse hal mid ayaa aad ii dhibtay, taasoo ah kabaha. hal kabo in lagu isticmaalo ciyaaraha oo dhan. xasuusna waa 1918 oo kabo ay iska ahaayeen oo keliya. hal kabo ayaa loo isticmaalayaa kubadda cagta, tenniska iyo feerka, taasoo aad ii dhibtay. waxaan ku fekeray inaan sameeyo kabo cajiib ah, khaasna u ah ciyaar kasta. balse nasiib darro waxay sameeyay dagaalkii koowaad ee adduunka ee dhacayay 1918. waxaa laygu daray dagaalkii si khasab ah. waxaana go'aansaday xilligaas ka bacdi inaanan wax waqti ah ku lumin fikrad aanan aaminsanayn. markii aan dagaalka ka soo laabtay ayaan doobiga hooyaday waxaan u bedelay goob lagu sameeyo kabaha. aniga iyo saaxiibkeena waxaan sameynay qalab kabaha lagu sameeyo oo khaas ah. waxaana ka sameynay baaskiil. ma garanayo run ahaantii inaan guulaysan doono iyo in kale, maadaama aan bilaabay wax cusub, balse waxa ahayn wax aan rumaysanahay oo aan ku kalsoonahay. waxaan sameeyay tijaabooyin badan. waxaana ka bilaabay inaan kabaha ka sameeyo harag kanguru iyo libaax badeed, balse waxaan aakhirkii ka sameeyay harag sac. waxaana hoosta kaga dhijiyay masaamiir yaryar oon ugu talagalay. markii aan dadka u soo bandhigay fikradaydan, dad badan ayaa igu qoslay, waxayna igu yiraahdeen waxaan wax shaqaynaya ma noqonayso. balse dheg jalaq umaana siin oo hawshaydii ayaan sii watay. nasiib wanaag, walaalkay iga weyn ayaa arkay fikraddan, waxauna go'aansaday inuu igu soo biiro. waxa uu ku fiicnaa ganacsiga iyo suuqgeynta, aniguna farsamada ayaan u qaabilsanaa. wadajirna waxaan bilownay shirkad magaceeda la yiraahdo Dassler Brothers Sport Shoe Factory. olombikadii ciyaaraha 1936 ayaan waxaan aragnay fursaddii ugu habboonayd aan ku soo bandhigi lahayn kabaheena. waxaana go'aansanay inaan ciyaaryahano badan ku dhiirigelino inay kabaheena xirtaan. badankoodna waxaa suurto gashay inay ku guulaystaan ciyaarihii, waana sidaan rabnay. kabaheena waxaa si aad ah loo bartay markii Michael Owenkii orodyahanka ahaa uu 4 jeer isku xigta ku guulaystay biladii dahabiga ahayd isagoo xiran kabaheena, taasoo soo jiidatay indhaha ciyaaryahano iyo bahda ciyaaraha. dalabaadkuna aad ayuu u soo kordhay. mar allaalaya markii aan samayn lahaa warshad cusub ayaa waxaa bilowday dagaalkii labaad ee adduunka, kaasoo bedeli doona hankayga. waxa ay dowladdii xilligaas jirtay nagu khasabtay inaan ku biirno xisbiga wadaniga ahaa ama aan weyno warshadeenna ilaa 100 shaqaale ahna noqdaan shaqo la'aan. run ahaantii aad ayaan uga murugooday oo waxa uu ahaa hankaygu inaan isku keeno dadka anigoo adeegsanaya ciyaaraha, ee ma ahayn hankaygu dagaal dad baabi'inaya. aniga iyo walaalkay dagaalkii ayaana lagu daray, balse aniga waxaa laysoo sii daayay xilli hore si aan shirkadayda u sii maamusho. walaalkayna shaqadii dagaalka ayuu sii watay. fariimo ayaan isku tiri jirnay shaqada la xiriidha. walaalkayna kuma qancin qaabka aan u maamulo ganacsiga. waxay sababtay inaan si joogto ah u muranno. markii dagaalkii laga soo laabtayna waan kala go'nay. waxauna asaastay walaalkay shirkadda ugu xifaaltanka badnayd abid ee Puma. markii dagaalku dhammaaday ayaa dowladda Mareykanku waxay caawisay Jarmalka si dhaqaalaheedu kor ugu soo kaco. waxayna igu caawiyeen waxyaabihii ka haray dagaalka si aan shirkadayda u sii wato. aniga oo lahaa riyada ah inaan guulaysanayo iyo dadaalkayga ayaan sii watay shirkadaydii. balse waxaa shirkadayda ka maqnaa magac. waxaana ugu magac daray labada xaraf ee ugu horreeya magacayga ee Adolf AD iyo labada ugu dambeeya oo ah Dassler. waxaana ka soo qaatay DAS. dhexdana waxaan geliyay I, waxaana u bixiyay Adidas.
loogadana waxaan xasuustay inaan sameeyey kabo leh 3 calaamadood oo aan ugu talagalay inay kabuhu xasilaan. sanadihii ku xigay waxaan sameeyey dadaalo fara badan heer aan takhaatiirta lafaha la xiriiro weydiiyo sida ay kabahaygu ugu habboon yihiin lafaha cagaha una saameyn karaan cagaha. ciyaartoyda oo aan la hadalno weydiino inay ku qanacsan yihiin kabaheena iyo qaabka ay u jecel yihiin iyo su'aalo fara badan ayaa ka dhigtay shirkaddeedu inay kor u kacdo. waxaana u malaynayaa in tallaabooyinkaasu naga sooceen shirkadaha kale ee nala tartamaya. waxaana dhegaysanaa waxa dadweynuhu rabaan waxaana u beddelnaa xaqiiqo. kabihii feeryahanka caanka ahaa ee Maxamed Cali iyo tennisyahankii Stan Smith ayaa adduunka tusay in hal kabo aysan ku habboonin ciyaaraha oo dhan. waxaan si u oran karaa fikradayda saafiga ahayd inaan sameeyo wax cusub xalliyana dhibaato ay dadweynaha haysatay ayaa shirkadayda ka dhigtay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dhanka agabka isboortiga. magacaygu waa Adolf Adi Dassler, waxaan ahay ninkii sameeyey Adidas. sheekadan waxaan ka baran karnaa inaad hadafkaaga aadan iska dhiibin, inaad samayso wax cusub iyo inaad isku daydo inaad xaliso dhibaato haysata dadka. fadlan ku soo biir Koryaal adigoo subscribe gareynaya. mahadsanidin.